بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين maadaama kalimaadkii ramadaanka aan dhammaynay soddonkii waxay soddon ku noqotay maalintii khamiisaad aan ka bilownay intuusan ramadaanka gelin kelimadii soo dhoweynta ramadaankan aan cadada ku dirnay yaan ku darnay sidaa daraaddeed bay soddon ku noqotay. waxaa jira su-aalaad laygu weydiiyey mowqica aniga aan gaarka u leeyahay ay dad asila soo dhigeen, marka waxaan u arkay munaasaba inay tahay in qaar ka mid ayaga aan ka jawaabo in la eg darsigii aan bixi jiray oo kale. marka su-aasha ugu horeysa nin baa wuxuu weydiiyey, kulamaa aan doono ilaahay inaan wax baryo waxaan soo xasuusanaa nicmooyinka ilaahay uu siiyey, marka waan isku xishoonaa waxaan leeyahay nicmadaas inaad ilaahay ku shukrisaa habboon intii aad macnaha geli lahayd wax kale inaad ilaahay weydiisatid. marka shubhadaasaa markasta yaa igu dhalatay buu leeyahay. waxaan leeyahay waa fiican tahay ilaahay subxaanahu watacaala nicmadiisa in dib loo eego, bal nicmada ilaahay uu ku siiyo in lagu shukriyaa waxay ku sababaysaa ilaahay inuu ziyaado ku siiyo, la in shakartum la asiidannakum. marka in ilaahay nicmaduu ku sii waana badan tahay, wax la koobi kara male. wain tacuduu nicmat allahi laa tuxsuuhaa wa asbaqa calaykum nicamahu daahiratan wa baatina. nicamta ilaahay una sii wax la koobi kara maaha. intaad kari kartid inaad ku madluub waa inaad ku shukrisid, laakiin taas ma diidayso ilaahay inaad wax kala weydiisatid. baahidaada wax dhammaanaya ma ah, adduun iyo aakhirabo. in ilaahay aad wax weydiisataahu waa cibaadaba, ama ha lagu siiyo waxaad weydiisatay ama wax kale ha lagugu bedelee, ilaahay in wax la weydiisto uu doonayaa, liannahu ilaahnimaad u qiraysaa inuu qani yahay oo wax kasta awoodo, adigana faqiir inaad taad isu qiraysaa, taasaaba cibaado ah. marka ina aladiina yastakbiruuna can cibaadatii sayadkhuluuna jahannama daakhiliin waa tan hore usoo sheeg sharaxeeda. marka labadaas isma diidayaan, waxaa la doonayaa qofkii inuu ilaahay nicamtiisana ku shukriyo, wa maca daalikana ilaahay oo weydiisto wuxuu u baahan yahay adduuniya iyo aakhirabo, asagoo ilaahay ka rajaynaya inay sidii tahay ugu ajiibayo. su-aasha labaad waxay tahay, nin baa wuxuu weydiiyey nin haddii uu wax baxdiyo adyaanta diimaanka la haysto, islaamkii maxaan ku irahdaa, kiristaankii maxaan ku irahdaa, yahuudiyadii waxaan buudiyadii waxaan irahdaa hunduuskii, wixii wada baxdiyey. marka siduu u baxdinaya wuxuu gaaray diin aan diinta islaamka ahayn a ula muuqata inay xaq tahay. marka haddiiba ijtihaadkiisa intaas uu gaaray, macduur ilaahay agtiisa maku noqonayaa inuu diinta islaamka ka tago uu diin kala qaato hadduu saas ku dhinto? jawaabtii waa maya, liannahu waxa meesha hadda maanta yaallo diin loo haysto waa diin dad ay qoreen. diintan xataa nebi ciise iyo nebi muuse lagu soo dejiyey, nebi ciise diintii lagu soo dejiyey waaba dhuntayba, iyada dhan lama hayo. dadkii kale oo asiga kadib yimideen waxay qorqoreen unbaa diin ay u haystaan, laakiin kitaabkii injiil ah oo ciise lagu soo dejiye lama hayo. yuhuudna waxooda waa aayad bixisayba, fawaylu liladiina yaktubuuna alkitaaba biaydihim. inta ay ku dareen iyo inta ilaahay uu soo dejiyey haddii laysku fiiriyo inta lagu daraa badan. marka baatilkaas iyo xaqan waadixa ah laba tartami karta ma aha. marka ninkaas waxa weeyaan asigaa is indha riday oo baxthi lama yiraahdo waxaas oo kale. calaa kulli xaal ninkii diinta islaamka agaarto siday tahay inuu u fahmo kana leexdo wuxuu soo galayaa waa gaal, waana khasaara. waman yabtaqi gayra alislaami diinan falan yuqbala minhu. diintan ilaahay ahayn oo loogu dhowaanaa male, cudurna loogu heli maayo agtiisa. laakiin ninkay diin gaarin ama diintii wax u sheegaba uu waayo, asna uusan baxdi samayn karin, ninkaas waxa weeyaan ahlu fatra lagu daraya. hadhow ilaahay imtixaan buu gelinayaa, hadduu ku najaxay haddii kaleba dariiqada ilaahay ogyahay baa lagula dhaqmi doonaa ninkaas. taa xaggaasaan ugu baxaynaa. ayib, su-aasha saddexaad waa soo gaagaabinaynaa. nin baa wuxuu iri waxaan ku noolnahay galbeedka, dhulka oo reer garbiga ah, reer galbeedka ah, waxay gowracaan ma noo bannaan tahay? su-aal dheer oo daba dheer weeyaan.
ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu noo sheegay inay طacaamkooda wa طacaamu aladiina uutuu lkitaaba xilun lakum buu yiri. طacaamkaas waxaa loo jeedaa dabaa'ixdooda, laakiin raashinka caadiga oo bariiska iyo keyrkiisa ah, ahlu kitaab iyo keyrkeeda wixii meesha noogu yimaado waa iska cuni karnaa, shiinaba allah ka dhigi. laakiin waxay gowracaan ahlu kitaabka waa noo bannaan tahay, waa markuu qofkii ahlu kitaab yahay waaye ou is aaminsan yahay diin inuu haysto. waa la ogyahay markii ilaahay uu طacaamka ayaga waxay gowracaan idiin bannaan ou leeyahay inay diin naf la haysan, ilaahay asaga waa ogyahay. laakiin maadaama isku tirinayaan dad ahlu diin ah oo baqaaya bani israa'iil diintooda ay haystaan, baa waxaa la siiyey axkaam gaar ahoo in lagula dhaqmo ay bannaan tahay. sidaa daraaddeed waa noo bannaan tahay dadka haddii yahuud iyo ama kiristaan ay haystaan waxay gowracaan oo dariiqadii diintoodii ay amartay ay ku gowracaan, waa noo bannaan tahay inaan cunno. laba shay yaana noogu bannaanayn. haddaan ogaano dariiqada ay ku gowracayaan saxarka inay tahay korontaaba lagu gubayaa, taas hadday tahay cid laga yeelaya ma jirto, ma noo bannaanaanayso. liannahu muslimkiiba hadduu sameeyaanba laga aqbalay, nin kiristaan ee laga aqbali maayo. ama ninkii baaba yahuud iyo kiristaan asalkiisa, laakiin diintiisa uu ku ridoobay. hadda yurub saasay u badan tahay, dhalinyarta yaryar diin oo dhan waaba diiday, waxay wax aan aaminsanahay ma leh. ninka saas hadduu yidhaha diintiisa uu ku kufriyey, waxaa la yidhaha wadardiimood baa la yidhaha markaas oo kale. laakiin ninka markuu aaminsan yahay inuu diin haysto, kaniisadii ku xiran yahay, macaasi kasta ha sameey, kitaabkooda ha taxriifsanaado, hadduuba diin inuu aaminsan yahay isu arko, sida hadda Etoobiya iyo Eritrea iyo Masar iyo kiristaanka oo ku nool diin bay ay macnaha ku xiran yihiin, kaniisada bay tagayaan, waxyaalo badan diintoodaba diinteyna naga xarimtay ku leeyihiin, wax badan diintooda u ogolaatay. dadkaas waa lala dhaqmi karaa. laakiin ninka hadduu yidhaahdo diin maba aaminsanayba aniga, uu soo istaago, ninkaas waxaa waye murtad waaye. sidii nin muslim oo diinta ka baxay oo kale, aan wixii gowraca loo qaadanayni, yaa ninkii diintooda ka baxayna uu la mid yahay. su-aasha kale, su-aal waan iska dhaafnay. nin baa soo qoray xadiidka oo cali bn abi aalib oo markii nabiga la dheelmiyey ou markaa ou ku dhacay, maxaan ku iraahdaa, cadaabyaal badan dumarka. xadiidkaas meeshuu ka soo qaatay iyo jawaabtiisaba waa iskula xiran tahay. sidaas awgeed waxa weeyaan wax laga jawaabo meeshaas uma baahna, waa wax meesha jawaabteeda ku qoran tahay. nin baa wuxuu leeyahay xaaskayga baan u tegay anigoo ramadaan sooman, marka waan ogahay waxa laygu leeyahay oo ah kafaaro. kafaaradaasoo cidqu raqabaa, inuu addoon xureeyo. haddii la waayo waxaa u sameynaya 2 bilood oo sooma, hadduu waayo 60 miskiin oo quudina. marka wuxuu ku leeyahay addoon maanta la xureey maba jirtabo, 2 biloodna ma soomi kari, kafaarana ma bixi karo, faqiir baan ahay. horta ma soomi karidaas yaa waxay u baahan tahay taxqiiq. yacni xoogaa yar uu idhibaya lagama yeelayo, soonka dhib uu leeyahay, laakiin in haddii aad isku dhibtid aad soomi karta waa lagaa rabaa. 2 bilood oon hal maalin laga anfurayni, shahrayni mutataabicayni. laakiin haddii dhakhtar uu caddeeyo in ninkan uusan soomi karin, ama dhibaatadii keentay inuu xaaskiisa maalin ku dhaco uusan ka sabri karin, kafaarada loo bedelaa. kafaarada hadduu kari waayo, fii qowli caamati lfuqahaa, dayn lagu leeyahay waaye, oo weligaaba waa lagaa rabi haynaya. marka haddii aad bixi waysid maanta, beri baad bixi kartaa, waa dayn lagugu leeyahay oo kale. dad yar baa waxay qabaan haddii labadiba uu kari waayo wax oo dhan waa ka wada dhacayaan, laa yukalifu llahu nafsan ilaa wuscaha. saas haddii la yidhaahdo, dad badan baa waxay leeyihiin ani intana ma kari, inta kale ma kari kara, dembigana uu bareerayo. marka taxqiiq badan ay u baahan tahay. su-aasha shanaad waxa weeyaan, nin baa wuxuu maqlay nebiga xadiidkiisa, janaaza nebiga lasoo marsiiyey, markaasuu istaagay nebiga. markaasaa la yidhi ilaahay rasuulkiisu ninka isu taagiisa waa yahuudi dhintay waayo. markaasuu nebiga alaysa nafsan buu yiri. marka hadalkaas maysan ahayn baa layidhi. uu ninkaa weydiinaya yahuud maxaa loo taqdiirinaya oo nebigu isu istaagaya. marka nebigaaba cilayba alaysa nafsan buu yiri. ninka yahuud haba ahaadee
insaannimo wuu leeyahay, ixtiraam iyo tacaamul uu leeyahay. marka in laysu istaagaahu insaannimada bahaa-imta waa ka sareysaa, ceeb maaha. marka qiyaamkaas oo ninka janaasada laysu istaagaya waa markii hore uu nabiga samayn jiray. markii dambana nabiga qaama uma qacada fi saxiix. markii hore janaaso kastoo lasoo marsiiya nabiga waa istaagi jiray, markii dambana wuu iska fariistay. marka alqiyaam mansuukh aslan sawaan fi lmuslim wa fi gayrihi. ninka su-aasha lixaad nin baa wuxuu leeyahay nin muslim baan ahay, dhakhtarnimaana bartaa, marka waxaa igu soo aadaysa buru dadkii dhintay inan jeexjeexo sidii aan ugu tababarto, ma ii bannaan tahay? jawaabta waxa weeyaan ninka la jeexjeexay hadduu muslim yahay la, ninka muslimka juhadiisa xurmada ay leedahay asoo nool xurmadiisoo kala waayo. ninka haddii uu gaal yahay waa bannaan tahay in lagu waxbarto lagu tababarto, waa bannaan tahay oo dariiqa oo lagu keensado. hadda jaamacaadka dalalka islaamka ku yaala gaalada laga soo gataa meytaadka, waa la keenaa, gaalada meydkana way gadataa. kii aad soo gadatid waa ku tababar kartaa, laakiin nin muslima maya. su-aasha todobaad nin baa wuxuu leeyahay maanta waan u jeednaa masaajidii waa xiran tahay, haddii ciid la gaaro oon gurigeena ku dukanna ma khudbo akhri karnaa? haddii guriga lagu dukado sida badan 2 ragcoo kale, yacni khudbada macnaha ciidda khudbada jumcadoo kale ma aha, waa khudbo yaroo tanbiih ah. qofkii haddii dadkii uu kelima baraarujin u jeeday ceeb ma aha, waana madluubka saas waa. nabiga markii dadka uu ciidda ka baxo uu dadka hortiisa istaagi jiray, kelimaad yaryaroo kooban buu akhri jiray. marka haddaad yani tanbiih ku samaysid waa ahlan wasahlan, haddaad ka tagtidne laa calayka xaraj, wax dhib ay leedahay ma jirto. laakiin khudba rasmi a ma jirto guryaha lagu akhrinayo. su-aasha oo 8aad nin baa wuxuu leeyahay zakaatilfitriya laysiiyey, aniga tii laysiima isaga sii bixi karaa? marka hore horta in lagu sii ma mutaysan tahay? hadday jawaabtay haa tahay waxaad bixisidba male, nin aan maalintaas wax haysanin baa tahay, ninkaasaa la sii karaa. ninkaas haddaad noqotay waxaad waaba cunay, wax laguu leeyahay ma jirta, faqiir baaba tahay. haddii adigoo waxaada haysatid wax dheeraad lagugu daray inaad qaadatid aba xaaraam ah. marka wax la yidhaahdo hal sac laysku wada wareejiyo wax la yidhahda ma jirto. qofkii mutaysta wax lagama rabo, ninkii wax haystana asagaa laga rabaa. marka taa in la ogaado way wanaagsan tahay. su-aasha 9aad nin baa wuxuu iri haddaan 10ka dambe oo habeenkii aan istaago oon cibaado dhan la imaado waxay ka dhigan tahay in leylatulqadri aan haleelay oon helay? jawaabti nacam. haddii aad cibaadaysatid habeen leylatulqadrin way ku soo maray, waana dadka lagu daraad ka mid tahay, ilaa in adiga cilo gaara ay ku haysato oo ilaahay daacadkaada uusan aqbalaynin. inamaa yataqabalu llahu min almuttaqiin. dadka waxaa weeyaan waxyaale waxaa jiro daaco kastoo la sameeya lama aqbalo, dadaa laga aqbalaa. markii dadkii laga aqbalay haddaad soo gesho waa laga aqbalaa, laakiin ninkaan laga aqbalaynin, nebiga waxaa sheegay ninka xaaraamta quuto, xaaraamta libisan, xaaraanta degan, guri soo booba degan, waxaas oo kale anna yustajaabu lahu buuri. dadkaas hadduu ka mid yahay waxba ka heli maayo. marka dadka unbay ku xiran tahay. ayib su-aasha oo 10aad miya nin baa wuxuu leeyahay waxaa nabiga hadalkiisii laga wariyay calayhi salaatu wassalaam, maxaan ku iraahdaa dajaal inuu soo bixi doono 40 sano wadanka adduunyada ku nagaan doono oo kulligeedna wada mari doono. marka yani mucjize maa la dhihi karaa buuri? dajaal waaba shaydaanku kasii liitaa. imtixaan ummadda soo marto oo dajaalka weyn nabiga ma jirta buuri. walidaalika intuu ummadiisa u cadeeyey wax kooban ma aha, laakiin ibtilaa ilaahay waxyaalo badan uu makani siiyey oo ah dhulka ciyuun inuu gaari kara meeshuu rabo, waxyaalo indha sarcaadid uu dadka ku samaynayo, qof inuu dilo uu soo noolaynayo. waxaasoo dhan waa ibtilaa'aad ilaahay buu makanina mudda min azaman. 40 maalmoodna maalinta koobaad waa sanad ay la eg tahay, maalinka labaad bil ay la eg tahay, maalinka kale usbuuc ay la eg tahay, muddada adduunyada uu ku nagaanayo. marka dambe ciisaa soo baxaya fayaduubu kamaa yaduubu lmilxu buu nabiga yiri. marka asiga dhan waaba iska waa dareeraya. marka
waxyaalahaas oo kale ilaahay dad uu siiyaa jira. hadda nabiyullaahi sulaymaan uli sulaymaan ariixa quduuha shahrun wa rawaaxuha shahr. nabiyullaahi sulaymaan ilaahay wuxuu makansiiyey dabeeshaas inuu iska ilaahay u sakhiro uu fuulo dabeeshii meel bil loo soco karo maalin niskeeda uu socdo, galabtiina 6 bilood meel loo soconay maxaan ku yiraahdaa shahr intii loo soconayo galabtii u soconaysa. marka taas oo kale nabiyullaahi ciisa waid tukhriju lmowta biidnii baa layiri, dad dhintii buu ilaahay soo u makaniyey inuu noolayn karo. marka waa idni ilaahay tabaaraka wa tacaala uu siiyey. marka qofka waa lagu ibtilaynaa mu'miniinta. marka waxaa leeyahy dadka way ku ibtiloobaan, maxaa la samaynaa? maya, haddaa noola sii sheegay dajaal wuxuu yahay inuu ilaa yahay, acwar yahay, saas uu yahay, saas uu yahay. waxa looga badbaadi karo awaa'ili suurat alkahfi in la akhriyaa, meelo uusan geli karin, ninka hadduu ilaahay ku dhegan yahay waxba uusan ka qaadi karin, waa noola sheegay. marka ninkii waxyigan nabiga lagu soo dejiye haystay dajaal waxba ka tari maayo. su-aasha xigto 11 ah waxaa la leeyahay waxaa la weydiiyey malaha dumar baa weydiisay. dumarka waxay leeyihiin ragga waxaan ognahay jannada haddii la tago xuuriciin bay leeyihiin, dumarkiina ma leeyihiin ayaga xuuriciin ma leeyihiin. ragga xuuriciin dumar kale oo qurax badanaa la siinaa, laakiin rag dumarkii hadday janno gala ayaga xuuriciin ma leeyihin. maya, nimankoodii bay ilaahay subxaanahu watacaala xuuriciin wax ka fiican uga dhigaya, ayagana qurax baa la siinaa. inaa ansha'naahunna inshaa'an fajacalnaahunna abkaaran curuban atraaban. ayagayaa quraxda la siina. xataa dad culamaa waxay leeyihiin xuuriciintay darajo lamid yihiin ama waaba kasii wanaagsanaanayaan. marka curuban atraaban liasxaabi اlyamiin, ayaga waxay leeyihiin dumarkaas oo adduunyada ku nool asxaabulyamiinta oo jannada gashay ayaa looga dhigayaa abaalmarin. marka qofka hadday ninkeedii ay janno la gasho masayr geli maayo. haddii xuuriciin la siiyo iyadoo keligeed uu qabo wax lamid maaha, liannahu kulligood waa hal qalbi waaxid ay wadaagsadaan. dumarka oo ninka la siinayo hal dumaray u dhigantaa, liannahu laa yakhtalifuun quluubuhum ka qalbin waaxid. wax masayr la yidhaha isdaba orod iyo ma jirto. marka sidaas baa ilaahi subxaanahu watacaala ugu abaalmarinaya. su-aasha oo ku xigta oo 12aad qof baa waxay weydiisay nabiga hadalkiisa, low kuntu aamiran axada an yasjuda liaxadin la amartu lmara an tasjuda lizawjiha. naagtaan amri lahay in ninkeeda u sujuudo. marka waxaa ay qofkan uu weydiinaya wuxuu leeyahay say ku dhici kartaa in wax shirki ah mahmaah ahaan loo soo qaato ama miithaal ahaan loo soo qaato. marka qofkaas carabigaa si ay wax uga dhiman yihiin. low kuntu aamiran axadan, haddaan axad amri lahay maba amraaye ay ka dhigan tahay. haddaan amri lahay qof inuu bani aadam qof kale u sujuudo, haddaan amri lahay maba amraayo, waa maba banaanee. waxa weeyaan markaa shayga haddii shay mustaxiil lagu xiro maya, xataa yelija aljamalu fii sami lkhiyaad, macnaa ritimaa irbad afkeeda geli karo. waxa idaa culliqa shay calaa mustaxiil fahuwa mustaxiil. nebigana maba amraayo in keyrkiisa in bani aadam qof kale loo sujuudana ma banaana fi shariicatina. sharaacidii hore nooc min asujuud baa banaanaa jirtay. waatii nabiyullaahi yuusuf calayhi salaatu wasalaam ra-aytuhum lii saajidiin, markay aabihiisii hooyadiisii dadkiisa la kulmeen walaalihiis sujuud linxinaa bay u sameeyeen. markaasuu aabe ru'yadii aan kuu sheegi jiray waa tan buuri. ayib, su-aasha ku xigto 13aad nin baa wuxuu ri waa anoo sooman yaan gaajo daraaddeed aan qaadi waayo wax baan iska cunay. dadka nicmada ku nool badana inay taxamulaan, weliba maalmaha oo dhulalka ay saacadooda dheer tahay soonku waa dhibaya. marka waa la kala adkeys badan yahay, qaara iimaankooda daciif uu yahay, aanan keri karin raashinka iska cunay. marka maxaa layga rabaa buu leeyahay, dembi weyn oo kabiira min kabaa'ir dunuubaad ku dhacday, towba keena lagaa rabaa, qadana waa lagaa rabaa. inaad mar talaad ku laabanina waa waajib bay kugu tahay, laakiin laguma dhahayo kafaaro kale lagaa rabaa, laguma dhahayo. laakiin ma sahlana in maalin ramadaanka ka mid ah oo qofkii fasaadiyo.
su-aasha kale wuxuu leeyahay waxa weeyaan malaha qof dumar ah wax weydiinaysee waxaa la leeyahay haddii naagtii ninkeedii ay dalbato marka wuxuu uri ninka naagta hadduu dalbado inay nafteeda u dhiibto oo markaa ay diiddo waxaan ognahay inay malcuuna tahay ilaa waaga uu ka baryo ninkii naagti haddii ayada ay dalabto asagana sidaasoo kale muu noqonaya xaaladu waa kala duwan yihiin ninka hadduu naagtiisa ka dhaarto 4 bilood inuusan u tegaynin iilaa baa la yidhaahdaa 4 bilood hadday dhammaato waxaa leeyahay ama naagtaada xaaskaada u laabo oo hawsheeda fuli ama waa laga furayaa wixii ka sokeeyo haddii xaaskiisa u baahan tahay asagana uu kari karo oo ayada dhib ay ku qabto inuu naftiisa u diido waa ku dambaabaya laakiin wax yowmi ah ma aha maalin maalmaha ka mid hadduu yidhaahdo hawshaas diyaar uma ahi sida ayada ay ugu dambaabaysa asiga uu dambaabi maayo laba sabab midkood liannahu asiga marka ugu horeyso waxa weeyaan waa nin amiir ninka amiirka ma'muur ma noqonayo asigaa guriga madaxa in la amro oo wixii lagu fuliye ma aha nin hadduu ra-iis dowla yahay hadduu qof wax amro talo waa ku leeyahay laakiin amar laguma laha ninkana sidaasuu guriga amiir uga yahay waa midda kale dumarkii ragga waxay kala duwan yihiin ninka mar kastoo la dalbo wixii iskama samayn karo cawaamil badana u baahan yahay baynamaa naagta way samayn kartaa wixii ayadoon rabin xataa ninka hadday ay isu dhiibto hawsha waa laga guda karaa ayada wax dhib weynahoo inay samaysa laakiin ninkan howlo badana looga baahan yahay ficilka inuu sameeyo marka qaarkeed wixii asoo samayn ah ayuusan samayn karin sidaa daraaddeed asiga xaggiisa loogaga dhaafay su-aasha ugu dambeyso ninaa wuxuu leeyahay yurubaan joognaa bangiga iyo sharikada wax ka qaadanaysaa haddii aad waktigooda ku bixisid bunuugta qaarkeed wax kaama qaadanaysa deyntu baad iska soo celinay laakiin dib haddaad uga dhacdid ribaa kugu bilaabanayso waxaan leeyahay ninkaas waxaa waajib ku ah inuusan deyn qaadanin ilaa asigoo og inuu waqtigiisa bixinayo maahan inayna sabab u noqon in ribo aad qaadatid hadday danti keento inaad ribo qaadatid waxay noqonaysaa inaad iska iibisid gurigaas ama aad ka noqosid beeciisa liannahu ribo in la cunaahu wax sahlan ma aha intii aan ka gaari karnay asiladii waa intaas weeyaan wallahu aclam sala allahu wasalam calaa nabiyina